والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka waraysa Ilaahay waa mahad leh. Ilaahay isuu keenay halkan maanta oo ay fursad noo saamaxday inaan soo siyaarano xaruntan lagu hayo caruurta daleed maayo xiskooda aan dhamayn waxa weeyaan xarun aad u balaaran dad fara badanina ay joogaan marka nasiib waxaan u helay inaan qadar yar oo raashina waayo xusida mudan annagoo wax badan aanu sidin laagsan soo xusno oo u nimaadno oo jimciyada raxma ay tidaahdo bal soo eeg xaaladda ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin iyo cid ka warhaysa xaaladooda soo eegno alxamdulillah rabbil caalamiin maanta oo hadda leedahay rabadaan oo ahayd in mar hore loo yimaado laakiin se waxa nasiib noqotay aan maanta soo gaadhno in xaruntan waa xarun aad u balaaran maanta aan joognaa in raashkeer ku qaybeynaa waa xarun dad fara badan lagu hayo gudoomiyaha ayaa inooga warrami doona xaaladda meesha iyo sida tahay laakiin se anaga oo ka warqabna horeyna uu nimid oo jeerna nimid ogna xaaladda sida tahay aad moodana in la ilduufay oo dadku ay ilduufeen waayo waa meelaha ugu liita markaad eegto dalkeena markaad eegto waayo waxa weeyaan ubadkanu waxyaalo fara badan u baahan waayo qofka waxaan u maleynayaa dibadda jooga ayaa arkay ubadka sida loo xanaaneeyo iyo sida loo hayo marka duruuf fara badan ay dadkan ku nool yihiin waayo hooyadu ma hayn karto ilmuhu markuu xanuunsado soconayo cagiis ku soconayo dhaqaaqayo ordayo laakiin maskaxda hadaa maskaxdiisa dhamayn waa xaalad adag buu ilmuhu ku jiraa ilmahaas wuxuu u baahan yahay ilaalin fara badan buu u baahan yahay raacad fara badan buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay meel uu ku nasto meel uu ku ciyaaro meel uu ku cuno meel wuxuu u baahan yahay ilaalin fara badan buu u baahan yahay marka annaga oo maanta xusnay xaruntan soo gaadhnay waxaan u keenay qadar yar oo raashin u keenay insha Allah bilaa kariim annaga oo wax badan aan haynin laakiin waan ka warhaynaa insha Allah waxaan leeyahay dadkeena walaalaha ee muuqaalka arka ee dadkan arka waxaan leeyahay gudayo dibadba haddii aleemad ugu horeyso dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay marka u horeysa in xoog saarto ay halkan aad gacanta ugu qabato waa xiran caruurta halkan aan imika ku xisaabtamta ee ku xiran runtii caruur yar maaha ilaa iyo kuwa guryaha joogeen soo gaadinaya xarunta ku xiran waalidiintood ku xiran yihiin oo ka warhayeen Allahumma salli ala sayyidina mawlana Muhammad ilaahay ba mahadoo dhammi u sugnaatay waxa mahadda labaad aan celinayaa Sheekh Cabdalle oo runtii ay tahay qofkii koowaad ee soo xasuustay maanta rabadaantan caruurtan yaryar ee baahida gaarka qabta Cabdalla ka warramay runtii baahida ay qabta caruurtu oo waliba aan xoog u sii dhaxgelnay dhowr jeer soo booqday caruurta yaryar oo caruur baahiyahoodu kala duwan yihiin waa qaar maxay haytay jir ahaan waxanuunsanaya maskaxaan waxanuunsanaya qaar maxay haytay lixaad ahaan waxanuunsanaya waa kala duwan yihiin runtii dhibaatada haysata jazaa Allahu khayr baan ku leeyahay Cabdallo maadaama soo xasuusatay maanta oo aad soo xustay oo aad u keentay raashinka maanta Ilaahay halkaad ka soo saartay cidii ku soo dhiibtay cidii ku soo marisayba waxaanu leenahay Ilaahay idankiisa meel shay ka soo saaray wax khayr qaba Allah ugu bedelo runtii inta sadaqadooyin baa la bixinayaa caruuraa la iidsiinayaa raashimaa la bixinayaa waxaad moodaa inaanay dadkeena taajiriinta ah ee sadaqada la baxaya iyo ummadda kale iyagu qudhowdu aan maxay ahayd sadaqadooyinka la baxaya waxaad moodaa runtii inay miskareeyeen amba aanay aweer badan ka ahayn xaruntan dhowr jeerna waan u baaqnay oo waxaanu ku nidhi caruurtan yaryar ha laga warhayo dawladda Soomaaliland cid kasta oo iyo charity Islam charitiyada wax bixiya Soomaaliland guud ahaan waxaanu leenahay caruurta yaryar cid kasta oo wuxuu tartaa waxay ka helaysaa ajar iyo xasanaad anaguna ajar iyo xasanaadkaas baan doonaynaa inaanu helo marka xasanaadkan ala qaybsadaanu leenahay caruurta halkan ku xiran ee caruurta halkan aan xaruntan imika ku xisaabtamta ee ku xiran runtii caruur yar maaha ilaa iyo kuwa guryaha joogeen soo gaadinaya xarunta ku xiran waalidiintood ku xiran yihiin oo ka warhayaan imika halka waalidiintii qaar badan baa fadhiya oo maanta markay maqneen raashinka yar Cabdalle keenayo wada yimid oo sidii bal idina at least inaad wax kasta ka heshaan waxna caruurta waa loo kariyaayo caruurta inta badan halkan cuntada loogu kariyaa iskuulku markuu furan yahay marka runtii waxaan leeyahay oo aan ugu baaqayaa dadka islaamka meel kasta ay joogaan gudayo dibadba in caruurta yaryar baahiyaha gaarka qabta ee xanuunsanaysa
ina ay wixii ay tari karayaan soo taraan الرحمة يتسينسو يجينا بالأدليس أفرتنا كات كنت ترتوح كقدر سيد فرحة يا محي أشر كاس وصل من لعبته تانا وانقعد سنة يا عدي كلي قيل دامت يا مقلة يصيرون تي شنطة عشاء رمضان تكهري يا أنت خدم بيسبا وحن لا هاي أشر كنا لا صاقلا لا قيب صدا تضبطن بان رنتي جالسين وركم تضبطن بان وشاقنا شرحات يضم ميرة دولة يد محي هيتي هيد يدبد ورنتي صعب ضل dadka gaalada iyo aan islaamka inay soo caawiyaan wada aragteen inaguna islaam baabaynu waxaan dad ka fiican gaal iyo cid walba ka wanaagsan oo wax yareed maanta bixisa taniga dimirteed maanta bixisa ajarkeedu wuxuu ku soconaya qof walba uu garanaya oo diinteena macaan baa inoo sharaxdo inoo sheegtay sadaqada tijaariya in farsiyo dadka miiriyuhu waa meelaha had iyo jeer dadka wax tara miiriyuhu marka waxaan ku codsanaynaa maxay tahay Soomaaliland TV-ga waliba ka qaranka in caruurtan yar u yimaadaan oo ay doobaan oo barnaamijyadooda geliyaan maxay haytay website-ka iyo meel kasta noo geliyaan cidii marka ku soo la soo xiriiraysa runtii ay halka kala soo xiriidho